Norway ayaa lagu soo waramayaa in daraasadihii ugu dambeeyay ee dhanka dambiyada iyo gabadhfallada ay geystaan dhalinyarada da'yarta ah ay xadkii goosatay, waxaana la soo warinayaa in sanadkan tiradii ugu badneed abid ee lagu soo oogo dacwado kala duwan iyo faldambiyeedyo loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ugu badan tahay mindiyaha ama tooreeyada ayaa lagu soo waramayaa in Norway laga diiwaangeliyay. Tiradan ayaa lagu soo waramayaa in sanadkii tagay ee 2024 ay gaartay 293 kiis oo ay ka dambeeyeen mas'uuliyadooda iyo dacwadoodana lagu furay dhalinyaro ay da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 17 jir kuwa oo ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ugu badnaayeen tooreeyada ama mindiyaha kuwa oo ay ku dhex siteen goobo fagaarayaal ah haba ugu badnaada iskuulada iyo goobaha ay wax ka bartaan. Arrintan ayaa lagu soo waramayaa in ay tahay tiradii ugu badneed ee abid laga diiwaangeliyay guud ahaan dalka Norway. Waxa uuna sheegayaa taliyaha xiriirka booliska dalka Norway ee magaalada Oslo, Stephen Bjelland, in arrintani ay tahay mid xadka bax ah maadaama qiyaastan iyo bandhigyada la soo bandhigay ee dambiyada joogtada ah ay geysanayaan dhalinyarada uu xadkii goostay. Waxa uuna intaa ku daray in dhalinyarada intooda badan ay tooreeyo ama mindiyo wataan kuwa oo ay guryahooda ka soo qaataan marka ay magaalada, goobaha waxbarasho iyo meelaha kale soo aadayaan. Waxa uuna intaa ku daray in dhalinyaradan qaarkood ay u sitaan difaac ay naftooda difaacanayaan maadaama ay hanjabaado iyo cagajugleyn kala kulmeen dhalinyaro kale oo la jaal ah, halka qaar kalena ay mar walba heegan ugu jiraan in ay naftooda ka difaacdaan wax walba oo xadgudub ah oo kaga yimaada dhalinyaro kale. Bishii September ee tagtay ee sanadkan ayaa lagu soo waramayaa in qarax loo adeegsaday bam gacmeed oo ka dhacay magaalada Oslo ay ka dambeeyeen dhalinyaro da'yar ah, halka lagu soo waramayo in ilaa 155 dacwadood oo dambiye ah oo ay geysteen dhalinyaro da'yar ah la geeyay maxkamadaha kala duwan ee dalka Norway. Waxa uuna ku waramayaa booliska in dhalinyarada haddii ay xaalad dagaal galaan ay fududahay in ay adeegsadaan tooreeyda ama mindida ay ku hubaysan yihiin, taa oo la sheegayo in ay dhibaatooyin baaxad leh oo nafeed ay ka dhalan karto. Waxa ayna sheegayaan booliska in hay'adaha ururada bulshada, dhalinyarada, iskuulada, goobaha kale ee waxbarasho iyo xitaa xanaanadaha looga baahan yahay in ay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa dambiyadan xadka dhaafay ee xargaha goosta ee ka dhacaya Norway, oo ay ku lug leeyihiin dhalinyarada da'yarka ah. Waxa uuna sanadkan 20 kiis ama dambiyeed ka badan yahay sanadkii hore marka loo eego falalka dambiyada ah ee ka dhacaya dhalinyarada. Si taalamida sanadihii hore ayuu ka badan yahay ilaa 52 fal dambiyeed oo ay ku lug leeyihiin dhalinyaro da'yar ah oo ay da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 17 jir. Arrintan ayay hay'adaha amniga, booliska iyo kuwa cadaaladaba ay ka codsanayaan shacabka qaybihiisa kala duwan, ururada bulshada, iskuulada, xanaanadaha iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee bulshada laga hago in ay u wada istaagaan si wax looga qabto maadaama uusan booliska keligii ku fileen in uu ka hortago xaaladan xadka goosatay ee xargaha goosatay ee ka socoto guud ahaan deegaanada kala duwan iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka Norway, taa oo dhalinyaradu keentay inay isku hubeeyaan mindiyo iyo qalab kale si ay naftooda u difaacaan ama faldambiyeedyo u geystaan. Halka warka kuwiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulaahi Sheede.